بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu noo tilmaamay in ciidana laga khalqay, wuxuu noo tilmaamay in ayadana la ku celin doono, wuxuu kaloo tilmaamay ayada inna la ka soo saari doono. minhaa khalaqnaakum, xaggeedaan idinka abuurnay, wa fiihaa nuciidukum, gudaheedaan idinku celinaynaa markaad dhimataan oo waa laydin qabriyaynaa. wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, mar kalena xaggeedaa laydinka soo bixinayaa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. walaalayaal, saan la socono adduunkan wax looga gadoomo ee qofku uu ku faaruqa waxaa ugu wanaagsan khaatimada fiican. waxaa u qiimo badan in khaatimadiisa ilaahay khayr ku khatimo subxaana wa tacaala, waayo qabri baa loo socdaa, waa meel ciriiri badan, waa meel mugdi badan, waa meel aan unus iyo wehel joogin. bacdamay saa tahay waxa ummadda anfaca ee qofka dhulka hoostiisa ku anfici kara waa inuu khaatimo wanaagsan la yimaado. khaatimada wanaagsan ilaahayaa laga baryaa subxaana wa tacaala. say gebagabadaadu noqon doonto lama oga. meeqaa wanaagsaneed oo halowday gebagabadii geerida markii dhowaatay, meeqaa xumeed oo hagaagtay mar allaala marka gebagabadii la gaaray. rasuulku inuu dhaartay buu yidhi macbuudkii asaga maahane mid kale uusan jirin baan ku dhaartaye, axad idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli nnaar, dadka ahlu naarkaa camalkooda. waa sida dadka u muuqata, dadka ahlu naarkaa camalkooda ummaddu aad bay ula yaaban yihiin. habaar helahan muu hagaago, ninkan muu iska toosay leeyihiin. camal ahlu naar ayuu markaa ku jiraa, ilaa asaga iyo naarta ay isu jirsadaan dhudhun buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, oo la leeyahay hadda hadduu dhinto naartuu gelayaa. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray oo ahaa nin wanaagsan inuu yahay. wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli ljanna, ahlu jannaha camalkooda, markaasuu jannadii gelaya. ilaahayaa toosinaya, waa hagaagayaa, towbaa la waafajinayaa, camal fiican baa la waafajinayaa, khayr iyo wanaag baa la waafajin, khaatimadiisaa hagaagaysa. intaa wixii ka dambeeya wuxuu gelayaa jannadii. qof idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa dadka ahlu jannaha camalkooda. waa sida dadka u muuqata, ilaa asaga iyo jannadu aysan isku jirsanin ilaa dhudhun maahane, oo dadku ay leeyihiin kan hadduu saa ku dhinta jannaduu gala, kan hadduu saa ku dhinto khayr iyo wanaag buu gaara. xaaladaasay dadku leeyihiin. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray. waa gadoomaya, wanaaggii buu xumaan ku beddelayaa, salaadii buu taariku salaadnimo ku beddelayaa, qur-aankii buu ka tegayaa, xijaabkii bay tuuraysaa. waa gebagabadii, dhimashadii baa soo dhowaatay. khaatimadaa xumaan rabta, khaatimadaa waxay isku beddeli rabtaa ahlu naarnimo. qofkii fiicnaa baad arkaysaa isrogay oo dhinac kale u noqday. saasuu ku dhimanayaa, markaasaa wuxuu gelayaa naarta. saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. walaalayaalow, aan aad iyo aad u dadaalno. daartaan aan joognaan ku sugannahay daar baa ka dambaysa. daarta ka dambaysa waa daartii qabriga. qabriga waxaa ka jira walaalayaal xayaato aanan anagu markaa aqoonin. xayaato lagu magacaabo xayaatadii barsaqa ayaa markaa jira. war barsaqa waa meel aad iyo aad u dhib badan. meeshaa qof allaala qofkoo annaga naga mida way sugaysaa, laakiin dadna waxay u noqon doontaa beeraha jannada ka mid ah, dadna waxay u noqon doontaa godgodadka jahannama ka mid ah. waciyaadu billaah.
qof walbow ka dadaal sida aad u hagaagi lahayd ku dadaal war qof walbow meeshaa sidii lagugu wanaajin lahaa barsuqu waa guri cajiib badan waa nolol aan annagu la socon oonan aqaanin waa nolol qayb ahoo iimaankii ilaahay noo tilmaamay aan ku rumaynay iyo sida kitaabka loogu tilmaamay rabbi asagoo tilmaamaya barsaqa iyo xayaatadeeda ayuu yidhi xataa idaa jaa'a axadahum almowt ilaa midkood geeri u yimaado qaala rabbi irjicuun gadaaliyo celiyuu leeyahay war gadaaliyo celiya godkaan ha igelinina barsiqii ayuu diidan yahay sababtu mataqaanaa waa la tusiyey markuu sakaraadka ahaa baa looga qaaday kashafka iyo wixii markaa ka saarna fa kashafnaa canka khitaa'ak daboolkaagii kaa qaadnay buu dha ilaah subxaana wa tacaala iceliya war meeshaan ha igelinina xataa idaa jaa'a axadahum almowt qaala rabbi irjicuun ilaahayaa idinku dhaariyey gadaal iyo celiya lacallii acmalu saalixan meesha camal fiican in loo qabtay u baahan tahay hadduu rabaa inta la soo celiyo camal saalixa qabto rabbi caabudo salaad dukado diin barto kadibna qabriga la geliyo ee hadda ha igelinina waayo saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciriirina saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu guba saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciqaabaya rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt waxaa loogu jawaabayaa kallaa ma jirta arrinta war qofku hadduu dhinto barsaqaa la geeya qofku hadduu dhinto ciiddaa laga hoos mariya qofku hadduu dhinto barkin looma qaado qofku hadduu dhinto sariir looma geliyo qofku hadduu dhinto nal looma geliyo qofku hadduu dhinto meel cidlaa looga soo taga camalka saalixaa shaqeeya camalka saalixaa wehel noqda camalka saalixaa iftiin noqda camalka saalixaa qabriga waasiciya camalka saalixaa qofka horumariyo wanaag gaarsiiya qabyaalad iyo xoolaanu orodna waxaan qiimo lahayn baan maanta ku dadaalnaa war wixii adduunka loogu talagalay in lagu joogo yaan maanta ugu talagalnaa aakhiro saa yaa la yeelin war qof walbo waxa aad haysato aakhira ku raadso war qabrigaasaa dhib badan war qabrigaasaa ciriiri badan war qabrigaasaa imtixaan badan qabrigaasaa mugdi badan lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waa hadal uu iska dhahay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala ka soo qaad maloo la tixgelin maayo diinta alluu tixgelin waaye aayaadka alluu dhaqangelin waaye ilaahay kalaamkiisuu dhagaha u raaricin waaye jirhkiisuu islaamka ku baabi'in waaye intuu noolaa ayuu xayaatadiisii ka dhigay xayaato aan diinta islaamka lagu dhaqmin saa darteed asagana loo tixgelin maayo hadalkiisa la qiimayn maayo suu diinta u qiimayn waayey hadalkiisa kor loo qaadi maayo suu diinta kor ugu qaadi waayey barsaqu aad buu u dhib badan yahay khaatimo wanaagsan qofkii la taga khaatimo fiican qofkii la taga khaatimo qurux badan qofkii la taga waa liibaani doonaa khaatimo sayi'a ah tawxiid la'aan macaasi oo lagu jiro xumaan oo qofku uu ka shaqeeyo qofkii ku tagana wuu khasaari doonaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala qof walba wuxuu ku dul dhintaa lagu soo bixiya war qof walba wuxuu ku khaatumaystaa lagu soo saara qof walba wax allaala wuxuu ku dul dhintaa qabriga lala geeya war camal saalix oo khaatimo fiican haddaad ku dhimato kaasaa qabriga laguugu geyn war camal xun oo sayi haddaad ku dhimataa qabriga lagula geynaya war qof walba waxay gebagabadiisu tahaa lala aasaa in badan aan ku mashquulna daacada ilaah subxaana wa tacaala wax badan shaydaanka aan iska ilaalinayo zalalkiisa war wax badan aan iska ilaalino islaamnimada aan qaadano waayo barsaqa mar allaala marka la tago waa xayaato jadiid ah waa caalam cusub oo aan horay u arkin kaaga sii daran qof kula joogaa malaha caalamkan hadda aan ku noolnahay waa kii adduunka ka qabrigaa la aadi doonaa oo la gelaya kii aakhiraasa loo soo bixi doonaa saddexdaa marxaladood ayaan mari doonaa marxaladan waan u jeednaa oo qof walba indhuhu saaray middaa labaad ee la aadi doona waa mid anaga qayb naga ah waxaa noogu dambaysa marka ciidda lagu rogo qofkoo laga soo tago waxaa noogu dambaysa mar allaala marka laga soo sahayo qaato oo alaabtii lagu geeyey laga soo aruursado waxaa noogu dambaysa mar allaala marka qabriga bannaankiisa looga duceeyo
waxaa noogu dambaysa mar allaala markay ummaddu dhaan ha layska cafiyo wixii ka dambeeya waa asaga iyo rabbi subxaana wa tacaala. maxaa rabbi u hormarsanay subxaana wa tacaala? qabrigase maxaa loo shaqaystay? inuu nebigu dul istaagay buu yidhi limithli haada falyacmal ilcaamiluun, war saan oo kale dadka shaqay ha u soo shaqaystaano, war meeshaan ha loo soo shaqaysto. qofkii shalay nala socdaa ciidda hoosteeda looga soo tegay, tii lacagta lahayd baa la soo aasay, kii xoolaha badnaabaa ciidda lagu soo rogay. wax meesha looga soo tagaa wax laga tegaayo ayaan markaa jirin, laakiin khaatimo fiicanaa lagu dadaalaa. war khaatimada sayidaa qabrigaa laysugu ciriiriya, xumaanta qofka badiya qabrigaa lagu ciqaaba. caalamka noocaasa waa caalam aad iyo aad u murugo badan. war dadku way ka indhala yihiin waxyaabo fara badan oo qeybkuu ka mid yahay. haddii dadka iimaanka leh ay yihiinna dadka waxaa lagu tilmaamay yu'minuuna bilgayb, inay qeybka rumeeyaan. qabriga waxa ka dambeeye ku hoos jira ayaa markaa ugu horeeya qeybka. rasuulka sala allahu calayhi wasalam axadka mar allaala markuu dhinto khaatimo fiican ku dhinto, khayrka iyo wanaagga asoo ku dadaalaya dhinto. waayo xadiis baa tilmaamay qofka mu'minka wuu dhintaa bicaraqin jabiin, asagoo dhafoor dhididaaya, asoo dhafoorkiisu dhididaayo ayuu dhintaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa dhici karta in loola jeedo asagoo daalaa dhacaaya, xaaraanta iska ilaalinaya, ka murgaaya, xalaal raadinaya, mar walba tacabka iyo dhibkaa ku jira, salaad ku dadaalaya, kheyrkii wanaagga ku dadaalayuu dhintaa. saasaa dhici karta in loola jeedo. caraq jabiin buu la dhintaa qofka mu'minka ah, khaatimo wanaagsan buu la dhintaa. mar allaala markaysaa xayaatada uga baxdo malaa'igtu waa u diyaar, karfan carfaysa, xunuub qiimo badan, intay qaadaan bay nafta kor u geeyaan, korayna ula baxaan. ahlu samaawaadkaa la cajabta walaalayaal. war waa maxay naftaan tiibka ah? war waa maxay naftaan imtiqaana udgoonka badan? yay ahayd naftaan saa u carfaysay u qiimaha badan? camalkay qabteen baa fiicnaa, waxay sameeyeen baa fiicnaa, khaatimaday ku dhinteen baa fiicnayd, wixii ay cuneen baa tiib ahaa oo fiicnaa, waxay labisteen baa xalaal ahaa. wax allaala wixii wanaag ah oo khayra way sameeyeen. saa darteed bay malaa'igtu la tacajubayaan udugeeda in allaalinta samaawaadka la sii marsiinaayo. war qof walboo ku dalad inaad saa noqoto. war qabriga ha lagu geeyo adoo udgaaya, udugaa ay dadku ku marinayaan midka malaa'igta ha kaaga qiimo badnaado. war karfantan ay dadka ku gelinayaan ta malaa'igta ha kaaga qiimo badnaato. mar allaala markay samaawaadku saa u marayaan yay malaa'igtu majeersanayaan. alla udgoon badana, alla caraf badana, oo yay ahayd nafsadda waa fulaan ibnu fulaan, waa fulaan ibnu fulaana, waa heblaaye qofka la sii wado. xaggee loo wadaa? rabbi agtiisa subxaana wa tacaala. xaggee loo sii wadaa? xagga allah. waa ciliyiin, kor baa loo sii qaada. mar allaala marka la geeyo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa ama uu farayaa in la geeyo meesha ciliyiin ah. jasadkiibay dadku dhaqayaan, jasadkiibay dadka nadiifinayaan, jasadkiibay karfan cadgelinayaan, jasadkiibay miskii catar u marinayaan, jasadkiibay janaase ku qaadayaan, jasadkiibay dhulka gelinayaan. markaasaa ciidda lagu aasaa walaalayaal. ilaa ilaahay subxaana wa tacaala oo idma in ruuxda dib loogu soo celiyo si su-aalooyin qabriga loogu weydiiyo. xayaatadii barsaqaa bilaabatay, baqi maayo, cabsan maayo, walwali maayo. intuu sakaraadayay ayaa loo yidhi allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun. waraa cabsaninoo ha murgoonine, war jannaad u socotaan maanta. naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati اddunya wa fi laakhira. war naf fiicanaasaa loo dhahaa, war naftiib ahaasaa loo dhahaa, gabar jalbaabataasaa loo dhahaa, tuxan iska ilaalisaasaa loo dhahaa, tu jasadkeeda ilaalisaasaa loo dhahaa, tu rabbi caasisoo khaatimo xumo ku dhimatay dhigadaalaanu ka arki doonaa. dhibaato fara badan baa u dambaysa walaalayaal. dhulkaa iyo caalamkaa cusub aan u diyaar garowno. ilaahay asoo tilmaamaya ayuu yidhi uma asabiila yasara uma amaatahu faaqbara uma idaa shaaa anshara.
waa dhiman oo waa la duugaa xilliguu doonuuna alla ka soo saari subxaana wa tacaala. haddaba qabriga ciriiri iyo waasictinimo labadaba waa leeyahay. qofka qaatimo fiican samaystana caalamkaa wuxuu kula noolaanayaa xayaato aad iyo aad u qiimo badan. war qofka asagoo maqlahaya raggii iyo dadkii meesha ku sagootiyey ee ciidda ku rogay dacaskooda shanqartiisa la soo fadhiisin sida nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. su-aalooyin baa la weydiinayaa. war su-aalaha la weydiinayaa maxay ka kooban yihiin ma taqaanaan? war su-aalahana la weydiin doona waa waxaan maanta nacnay, waa maanta waxa bartana la kala yahay, waa waxa maanta aan ka hijroonay. war nebigaana la su-aalayaa sala allahu calayh wasalam, ma naqaana qisadiisii taariikhdiisa. rabbigeen baana la weydiinayaa, ma naqaana cadamadii awoodda uu leeyahay subxaana wa tacaala. diinteennaana la weydiinayaa, maanta qabiil baa diin noo ah, ganacsi iyo dukaamaa diin noo ah, fisqi iyo macaasi baa diin noo ah, filin iyo heesaa diin noo ah. qabrigase haddiina la dhigo oo nala weydiiyo diintiina waa maxay, maxaa lagu jawaabi doonaa? maxay dadku celin doonaan? maxayse rususha alla u soo diray ay markaa u celinayaan? nin saxaabi baa dhintay, wuxuu yidhi markuu sakaraadka ahaa, haddii aan dhinto oo aan geeriyoodo qof dumar ayaysan i raacin oo naacyaha oo ooynaysa, dab iyo naar yaan layga soo daba qaadin buu yidhi. mar allaala markaa laxdigii iyo godka ay dhigtaan, ciiddana aad damacdaan inaad igu shubtaan, si shanni ahoo tartiib tartiib ah ciidda iigu shuba. mar allaala markaad aaskayga dhammaysaan oon ciidda ka hoos maro oo aan soo bixi karin oo meesha ugu dambaysa aan maran joogo, waxayga kala tegina, ila joogoo cabbaar agtayda fadhiya. intii ratigeela laga gowraco oo hilibkiisa la qaybiya in la eg ila jooga. waxaan rabaa inaan idin weheshto oo aan ogaado rususha ilaahay ii soo diri doonaa, su-aalaha ay i weydiin doonaan, jawaabtaan markaa ka bixinayo. ha iga kala ordina isla markii ha iga kala yaacina. meesha keligii yaa ku ahay, meesha cidluu ku yahay, xaas iyo wiil ma joogo, walad iyo waalid ma joogo, qabiil iyo kaaba qabiil ma leh. isla markaad ciidda igu shubtaan, qadar ratigeela la gowraco, hilibkiisa sadaqa loo dhiibo, intaa ila jooga aan idin weheshtee. meesha wehel ma jira walaalayaal, meesha hooyo ma joogto walaalayaal, meesha aabba ma joogo, meesha xaas iyo oday ma joogo, carruur ku aad dhashayna meesha ma joogaan. war qof walba oo camalkaaga fiicnay, war meeshaa meel loo shaqaysto ayadaa mudan. qabriga rasuulka sala allahu calayh wasalam danni buu leeyahay buu yidhi. qofka mar allaala marka la dhiga wuu ka naxsadaa. haddii axad badbaadi lahaa, cuhmaan waxaa ka badbaadi lahaa sacd ibni mucaad ninka lagu magacaabo. markuu dhintaa allah raxmaanka carshigiisa rucday, 70,000 oo malag yaa aaskiisa ka soo qayb gashay. ninkaasaa badbaadi lahaa. isla markii axadka la dhigo intuu isku yimaado uu dhaqdo mid ciriiri ah, xaaladaasuu noqda. dadna alla waa u waasiciyaa, qolana waa lagu sii ciriiriya. ilaahay subxaana wa tacaala in laga cabsado waa lagama maarmaan. cidmaan baa oohin la joojin waayey, qabri baa laga sheekeeyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam annagoo nin janaaso aasaynuu noo yimid yay dhaheen koox saxaaba ah, ulbaa kooruutuu dhulka ku xarxariiqaya. saxaabada waxay dhaheen nebiga waa noo yimid, waana fadhiistay qabriga gaarkiisa. mar allaala markuu fadhiistay ayay saxaabadu gaarkiisa fadhiisteen. wax hadlaayaa male, wax dhaqdhaqaaqaaya male, wax shanqaraaya malaha. waxaad mooddaa madaxyaalkeena inay shimbir saaran tahay, shimbir inay ku degsan tahaad mooddaa. waa la sheekeeyaa, waxbaa lagu dhex iibiyaa, waxbaa lagu dhex xantaa. ragga gobolka mida jeebkooda qaad baa ku jira iyo sigeer, qabrigaa la kor taagan yahay walaalayaal. uma qasad quluubahum min bacdi dalik, qalbigiinaa qalalay markaa kadib. xijaab iyo dhagxaan bay qalbigaalkeenu noqdeen. dhagxaantaaba jilicsan qalbigeenna marka la fiiriyo. war nin qabri ku dul sheekeeyey, war nin qabri sheeke ku sameeyey, qabri ku dul xantay, sigaar ku dul cabay, xoolo xaaraana ku dul wata, waxa dhiman maxay yihiin walaalayaal? khaatimada aad iyo aad ugu dadaala, khaatimada xun iska ilaaliya, khaatimada fiicanna aad iyo aad ha loogu dadaalo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam saasuu ugu xarxariiqayaa ushi. markii janaasadii la aasay ayuu yidhi, war walaalkiin istikfaaru weydiiya, war ilaahay u barya subxaana wa tacaala. ma u jeedaa xataa alla ma baryan karo, ma dukan karo, ma soomi karo,
ma xijaaban karto sadaqa lama baxsan karto hadda waxaasoo dhan waa samayn karnaa laakiin culaysaa naga saaran shaydaan baana hortaagan laakiin xaaladdu qofku marxaladdaa uu gaaro wuu jeclaanayaa inta inuu sameeyo laakiin ma awoodi karo istakfiruu liakhiikum walaakiin dembi dhaaf u weydiiya haddaa qabriga la geliyey haddaa la duugay caradaa laga hoos mariyey ummadda korkiisay marayaan ummadda dushiisay ku socdaan arlada hoosteeduu ku jiraa wuxuu u baahda ma dalban karo wuxuu u baahda ma codsan karo wuxuu rabana ma samayn karo saa darteed ayaa meeshaa meel cajiib badan ay tahay walaalayaal war qabriga barsaqa iyo xayaatada barsaqa waa xayaato aad aad u cajiib badan laakiin aanan aqoonin annaga sida ay tahay laakiin aan u rumaynayno sida ilaahay iyo nebigu ay noogu sheegeen sala allahu calayhi wasalam aad ha loo dadaalo war qabrigaa waa la geli doonaa dhawaaqa ummaddaa lagaa qarin doonaa iftiinkaa lagaa qarin doonaa gurigaagaa lagaa wadi doonaa jiifkaad jiiftaa lagaa wadi doonaa qadadaad qadayn jirtay quruxda badneed baa lagaa qaadi doonaa dahabkaad ku labisan jirtaadan dib damba u arki doonin dib damba ma u arkaysid adaa kasbadoo shaqaystay haddaad tii aakhiro shaqaysatay oo qiyaamo laysku qurxinayeyna khayrkeedii wanaaggeeda xaggaad ku heli doontaa haddii aadan kasbantii aakhirana taana seegtay tanna lagaa soo waday aad ha loo dadaalo qofka muslimka waa qofka caaqilka ah waa qofka qiyaamo u shaqaysta waa qofka qabriga u diyaargarooba waa geerida kabacdi qofka u diyaargarooba waa marka dhulka la galo qofka u diyaargarooba caaqilkaasaa la yidhaahdaa caaqil midka dadka siraan u naqaana caaqil midka dadka siyaaseeyaan u naqaana caaqil midka sida wax loo iibiyaan u naqaana caaqil sida wax loo kasbado qofka yaqaanaan u naqaana xaaladdu yaysasaa noqonin walaalayaal war caaqil waa man daana nafsah wacamila lima bacda almowt waa qofka naftiisa xisaaba war qalin iyo buug baa laga daba wataa naftaan war haddaan saa la yeelin xarigay goosataa war haddaan la xakamayn way ku xakamaynaysaa war haddaadan iska qaban aday ku qabanaysaa meel xun bay dadka ka tuurtaa ina annafsa la ammaaratun bisuu xumaantay amrid og tahay weligeed wanaag kuma fartee waa lagu khasbaa war weligeed wanaag kuu ka cilmaysee waa lagu khasbaa walaalayaal saa darteed naftani ha raacina in badan war naftaan say rabta ha u yeelina shahawaadka waxaa lagu wareejiyey cadaabka naftuna shahawaadkay rabtaa makruuhaadka jannadaa lagu wareejiyey naftuna makruuhaadkay necab tahay waxay necab tahay sameeye aad janno gashaani war waxay necab tahay ku qasbasaad janno u heshaan faamaa man طagaa waaahara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ساسي ددكو كلا نقن دونا والسويدين دونا سؤالوينك ورقفك مؤمن كاسي هبسمي بو اوغا جوابي دونا قبرغو سكجرا إلهي هدي لويدي الله يقانا وعابد جري وأدكن جري وأسلاد جري خيرك وناقو أسميسن جري طاعة الله أسميناي وبري جري حالدها صدن بو أغيهي ربي يسو شيغا يا سبحانه وتعالى يا صهر يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مر الله لمرك لويدي وكجوابيا مرك لويدي كجوابيسا ويتقانا ورسولك إذا صلى الله عليه وسلم ويتقانا ومدكي سندي سكود ينيسي ويتقانا ومدكي رادين جرتي ويديه جرتي أرنتا رسولكم عكيري صلى الله عليه وسلم maxaa soo haray islaamnimada waa midii ku dhaqmaysay waa midii uu ku dhaqmaayey intaba si habsamile buu u sheegayaa axaadiista qaar baa waxay tilmaamayaan mar allaala markastaa qabriga loo dhigo nin baa loo soo miihaalayaa oo la leeyahay ninkan cilmigaaga muxuu ka gaarsiisan yahay gabadha muuqinada ah wiilka mu'minka ah gabadha mu'minada ah waxay oranayaan hada muhammad midkani waa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam jaa'ana bil bayinati fa ajabnah wuxuu noo yimid aayad cad ah wuxuu noo keenay diin xaq ah waa ajibnay waana raacnay waa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam aad iyo si habsami leh ayay uga jawaabayaan seexa sida qofka arooska u seexda oo kale loo leeyahay maxaa loola jeedaa qofka arooska oo kale u seexo si fiican u seexo ilaan arooska si habsami leh buu u jiiftaa wax kiciya iyo wax mataqaanaa hurdada ka qashaa ma jiro ilaa qofka u calmaday ee adduunka uu ka doortay inuu nolol la wadaaga maahani saa darteed saasoo kale idinkana u jiifta oo saasoo kale markaa u seexo qabrigiisaa la waasicinayaa walaalayaal maddal basar in allaale inta in leeyahay aragtay gaarta aragti qabrigiisaa loo iftiiminayaa
meeshaasuu ku jiraya. weli waxaa la tilmaamaa in la tusaayo naaraha ka mid ah, waayo waa naartii loogu talagalay. inta loo soo cardiyo loo soo bandhigaa la leeyahay, ma ujeedaa naartaan? waa maqcadkaad naarta ku lahayd, waa booskaad naarta ku lahayd. haddaadan maanta qabrigan ka jawaabi lahayn su'aalahan, haddaadan diinta alla ku soo dhaqmi lahayn, haddaadan nebi moxamed raaci lahayn, haddaad noqon lahayd qof khaatimadiisa xumaata, meeshaasaa lagu gelin lahaa. kadib ayaa la tusayaa oo loo furayaa maqcadkii jannada uu ku lahaa. ma jira shay uu kaga farxad badan yahay. markaasuu odhanayaa rabbi aqimi saaca, ilaahu saacadda qiyaama rid, ilaahu saacadda qiyaamo degdeg ha noogu timaado. muxuu rabaa inuu u laabto? muxuu rabaa jannada inuu helo? qof alla qofka qabriga uu ku guulaysto oo wanaag uu ku helo, inta ka dambaysa u fudud. qof kastoo laakiin meesha imtixaanka ku dhaca, lagu ciqaabo, lagu ciriiriyo, dhibaato iyo rafaad uu la kulmo, inta ka dambaysa ka dhib badan, inta ka dambaysa uga culus. seexa la leeyahay. yaa soo haray qof allaala qofkii rabbi aan caabudin? yaa soo haray dumarkii diinta qaata laga kari waayey, kuwii jalaabiibta xooree qaawanaan bannaan ku socday, kuwii carabkooda ilaalin waayee bannaan ka dhigay, kuwii rabbi diintiisa dhagahooda ku dhagaysan waayey, araggana ku eegi waayey, dhallinyaranimadooda ku baabiye tumasho iyo ciyaar, oo aan rabbi jasadkooda diintiisa aan ugula dhaqmin. xaaladdaa iyo kuwii noocaasaa soo haray. ragga xaaladooday saa ahayd baa soo hartay. mar allaala markay saa uga baxda nafsadda, ayadoo qurun ah, ayadoo uraysa, ayadoo dhib badan ayaa kor loo qaada. ilaahay waxaa kor u aada wixii wanaagsan. ilayhi yascadu lkalimu اطayib waalcamalu الsaalixu yarfacu. kor baa loo qaadi lahaa naftiiba hadday ahaan lahayd. malaa'igtu maba gaaraysaba, albaabahaa laga soo xirtaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. samaawaadka albaabahoodaa laga soo xiraa. intii rabbi ku kufrisay, aayaadka ilaahay qaadan weysay, diinta ku kufrisee beenisay, wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala laa tufattaxu lahum abwaabu asamaa, samada albaabaheeda loo furi maayo. walaa yadkhuluuna aljanna, jannana geli maayaan xataa yelija aljamalu fi sami alkhiyaad, ilaa cirbad meesha jeexan ee yaree dunta laga geliyo ratigiila uu ka baxa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. waa shay mustaxiil ah, macquul ma aha. meesha cidunta la geliya cirbadee duleelka ah, samiga iyo duleelka yariiska ah, ratigeel inuu dhex maro, markaa kadib bay janno gelayaan. ma mari karaa? waa maya. ayaguna ka soo bixi maayaan. macnaha saasaa markaa loola jeedaa. naftu waa qurun, naftu waa naf aan fiicnayn, naftu waa naf aan diin alla lagu tahirin, naftu waa naf aan lagu sujuudin, naftu waa naf aan loo weysaynin, naftu waa naf aan rabbi lagu xusin, naftu waa naf aan qur'aan lagu aqrin. samaawaadkaa laga soo xirtaa, samaawaadkaan loo ogolayn. wax nadiifaa gala walaalaya, wax nadiifaa kor loogu qaada, wax tiib ahaa kor loogu qaada, wax qurux badan baa kor loogu qaada. wax uraayaa lama geliyo, naf rabbi caasay lama geliyo, gabar ilaahay diintiisa diidda nafteeda lama qaadsiiyo, ilaa ilaahay uu amro in sijiin loo celiyo. kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin, wamaa adraaka maa sijiin, kitaabun marquum, weylun yowmaidin lilmukadibiin. meeshaasaa la geynaa 7 arlo hoostooda ah. meeshaasoo sijiinkaa la gelinaya, meeshaasay ku dambaynayaan. aad ha loo dadaala walaalayaal. khayrka iyo wanaagga yaan la dhinac marin. inta la nool yahaa rabbi la caabudi karaa, inta la nool yahaa sadaqa lala bixi karaa, inta la nool yahaa la xijaaban karaa, inta la nool yahaa rabbi la baryi karaa, inta la nool yahaa istikfaar la weydiisan karaa. mar haddii la gebagabeeyo oo qofku ay uga dhammaato adduunka, camalkiisa waad aragtay. ha loo duceeyey, janaasa ha lagu tukado, intaasay isugu soo ururaysaa. waxaad horay usii horumarsatay waa gooni, wixii adigoo nool aad qiyaamo horumarsatay waa gooni, wixii aadan meel dhigan laakiin aad aakhiro geysatay gooni bay markaa tahay. sidaa darteed ibnu aadamku waxay leeyihiin maalii maalii, xoolahaygii. war xoolaha ma waxaad ku leedahay ilaa waxaad cuntood baabi'isa maahane. waxaad labistood korkaaga ku googoyso iyo waxaad sadaqaysood ilaahay horumarsato subxaana wa tacaala. waa saddexdaa mid ka mid ah. aad iyo aad baa loo baahan yahay xaqa iyo wanaagga in markaa lagu socdo. naftii saasaa albaabada samada looga xirtay, saasaa dib loogu soo celiyey. jasadkeedii bay dadku mayrayaan, way udginayaan, mana udgayso.
way carfinayaan mana carfayso, miski baa loo marinayaa mana udgaayo, sida loo sii wado ilaa rasuulku uu tilmaamay war haddaad janaaso qaadaan ood qabriga rabtaan inaad sii geysaan ood u kacaynaysaan iska dedejiya, naf fiican hadday tahayna fa khayrun tuqadimuunaha, khayr baad u hormarinaysaan ood u gelinaysaan, wa in taku sawiyu daalik, naf aan fiicneen hadday tahay waa shar qooraha idinka saarneede dhaqso iska dejiya buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam. waxba silsilitaankeeda iska daaya, waa qurno, waa taariku salaad, waa xanleey, waa qofaan diin aqoon, waa qofaan diin ku socon, waa qofaan towba keenin, waa qof xumaanta daa'ima. iska dejiya, qoorta ha ku haysanina. waa hadday shar badan tahay, hadday khayr tahayna khayr unbaa loo gelin, khayr baa loo hormarinayaa, khayr bay markaa u socotaa. naftii fiicneed waanu soo aragnay, tii khaatumada ka xumaatay oo khaatumadeedii wanaagsanaan weysay, mar allaala marka saasoo kale dadku ay aasaan oo ciidda lagu rogo oo dhulka hoos laga marsiiyo oy dadku ka soo kala dareeraan baa nafta lagu soo celiyaa, xayaata barsaqaa la soo fadhiisiiyaa. mar allaala marka loo soo fadhiisiiyo oo meesha la soo fadhiisiiyo ayaa su-aalooyin la weydiinaya. rasuulku wuxuu dhahay qofka aan mu'minka ahayn, qofka munaafiqa ama murtaabkee shakiga badan, haddii la yidhaahdo ninkan mataqaanaa hah buu ku jawaabayaa. haddii la dhaho diintaada mataqaanaa, dameerkoo kaleu u qaylinaya. muxuu dameerkoo kale ugu qayli? waa dameerkoo kaleu adduunka ugu shaqayn jiray, dameerkoo kaleu adduunka u dhaqmi jiray, dameerka oo kaleu adduunka ugu socon jiray. qofay xisaab sugaysa ma ahayn. ha waxaan ahayn uu ku jawaabayaa ma jiro. war nebi moxamed mataqaanaa ha haddaad ku jawaabto xaggee jana ka helaysaa? islaamka mataqaanaa ha haddaad ku jawaabto haawiye mahema meel kale aan lagu geynaa. rabbigii ku khalqay, hooyo caloosheeda kugu maamulay, awooddan ku siiyey, indhaha kuu furay, dhagaha kuu furay, cibaadadiisii aad ka leexatee lagu yidhi mataqaanaa ha haddaad ku jawaabto maxaa qoradii wanaag kuu ah? ilaa malaa'igtu ay garaacaan sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam. war qabriga wuu ku qaylinayaa suu nebigu tilmaamay, qaylada ka soo baxaysa gurunka ay ku dhuftaan malaa'igta. wax walbaa maqlay ila thaqalayn, jinni iyo insi ma ahane. jinni iyo insiba alla ka dhaga qariyay subxaana wa tacaala. haddii ay dhicileed in la maqal siiyo, suuxdin baa loo lahaa, suuxdin baa loo dhammaan lahaa, argagax baa loo dhiman lahaa. saa darteed ayaa ilaahay mahad leh ka qariyey ummadda subxaana wa tacaala. haah buu ku jawaaba, markaasay ku dhufanayaan. haah buu ku jawaaba, markaasaa la garaacayaa. qabriga gudihiisuu ku jiraa, hooyii eedaan ku ogeyn, adeerii abti waan meel kugu ogeyn, qabiilkaa shilaad qaaraanka sii jirtayna kuma oga. yaa kaa soo saarayo kuu maciinaaya, yaa kugu imaanayo dib kaaga soo bixinaya ma jirto. rabbi haddaad caabudleed waa laguu gargaari lahaa, khayrka haddaad ku dadaaleed alla nimco ku siin lahaa, laakiin meeshaasay ku garaacayaan. ilaa qabriga laysu keena buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam, labadiisa daraf oo feerihiisu qofku ay is-ikhtilaafiyaan oo ay markaa isdhaafaan. kuwii bidixda jiraa midigta mari doona, kuwii midigta jiraa bidixda mari doona. meeshaasuu dandariya dhib ugu jiri doona. janno albaabkeedaa loo furayaa. wallaahi haddaad rabbi caabudi lahayd, ood salaad dukan lahayd, ood jalbaaban lahayd, ood shirki ka fogaan lahayd, ood khayrka ku dadaali lahayd, gurigaasaad geli lahayd baa loo leeyahay. waa nadaamo, waa qowmamo, aad buu uga qowmamaynayaa, laakiin kama soo bixi karo. wuu jeclaan laha in la soo celiyo, wuu jeclaan laha in adduunka la keeno, gurigaana uu u shaqaysto. walaakiin hayhaata hayhaata, wakhtigeedii baa dhammaaday, wakhtigeedii ayaa meesha ku eka. waxaad shaqaysataa lagaa jaasinayaa. saa darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala in badan tilmaamay dhibaatooyinka qabriga ku sugan. rasuulku wax badan buu noo tilmaamay mashaakilaadka faraha badan ee qabriga yaala. gabar madow oo masaajidka xaaqi jirtay, riwaayadaha qaarkood ay wiil ku tilmaamaan buu rasuulku waayey sala allahu calayhi wasalam. war aaway buu dhahay tii masaajidka xaaqi jirtay. yaa rasuul allahi maatad, way dhimatay. rasuulku wuxuu yidhi waxay dhaheen way dhimatay, waana aasnay. habeennimaa la duugay inanta. nebigu aad buu uga xanaaqay sala allahu calayhi wasalam. afalaa kuntum aadantumuunii, maxaa iigu soo sheegi weyseen buu yidhi. war gabadhu qiimay leedahay, beeg allay nadiifin jirtay,
guriga allay xaaqi jirtay guriga allay qashinkii wasaqda ka ilaalin jirtay dadaa ka shaqeeya goobaha khamrada lagu cabo dhalooyinka ka qaadqaada waciyaadu billaah beedka ilaahay bay qashinka ka saaraysaa guriga ilaahayay ka shaqayn jirtay maxaa iigu soo sheegi weyseen ayaguna waxay isteen nebi maxamed yaan la soo dhibin waa habeennime iska aasa intaa wixii ka dambeeya hadda igeeya buu dhahay nebiga qabrigeeda waa la soo kaxeeyo qabrigeedii baa la keenay waa ku tukaday nebiga waa u duceeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma u jeedin buu yidhi qubuurtan meesha yaala dhammaan mugdi bay ku jireen rabbi baa ku iftiimiyey salaadii gabadhan aan ku tukaday ilaahay subxaanahu wa tacaala suu u sharifay khayr iyo wanaagna uu u siiya fiiriya qabrigu waa mugdi saasaa la tilmaamaya qabriga waa la isku ciqaabaa taasaa la tilmaamaya qabrigu waa meel fadiixa oo aad u xanuun badan oo u murugo badan taasuu xadiisku tilmaamaya sidaa darteed qabrigii waa laysku keenay feerihii way isdhaafeen qofkii waa cabaadaya qofkii waa qaylinaya xayaato aanan aqoonsay tahay rabbise ku cilmi badan yahay ayuu nool yahay aad iyo aad waa in loo dadaala fircoon baa kibray oo amarka alla diiday fircoon baa wax badan la waaniyey oo ka dhaga furaystay fircoon baa nebinimo sheegtay fircoon ayaa ilaahnimo sheegtay fircoon ayaa wax badan damcay inuu nebi muuse dila calayhi salaam nuurka allana oo markaa demiyo wax badan bay tolkiisii qoomkiisii intii iimaan leh ay waaniyeen nin qiimo badan baa ka soo baxay oo khayr iyo wanaagga u sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala buu xusuusiyey gebagabadii markuu ka qustay buu yidhi fasatadkuruuna maa aquulu lakum waxaan idin leeyahay waad xasuusan doontaan wa ufawidu amrii ila allah amarkayga ilaahay baan u bandhiganayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waa basiir bilcibaad inay dilan bay damceen tooreeyaalihii budad bay u soo qaateen wixii wax lagu dil laha bay la yimaadeen fawaqaahu allah sayi'aati maa makaru allaa ka badbaadiyey shirqoolkii xumo ay u sameeyeen waxaaqa biaali fircawn suu'a alcadaab cadaabkiisa ugu xun baa fircoon alkiisa casiibay annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قبرغا لولا جيدا ولا قلب يسوح بقى نار لو بندقيا نار با لو عرضنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والصبح يا قلب qabriga saasuu xaalkiisu yahay walaalaya qabriga saasuu lagugu bandhigayaa cadaabka qabriga saasaa qofka loogu soo bandhigayaa subax iyo galabba maalintay qiyaamo qumayso oo aakhiro la gaarana waxaa loo oranayaa fircoon iyo aalkiisa geliya ashadd alcadaab cadaabkiisa ugu daran ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala haddaba qofka khaatimada fiican ku shaqaysta ee khaatimadiisa gebagaba ku dhammaata oo qowlkiisa ka u dambeeya tawxiid noqda oo camalka saalixa mar walba ka shaqeeya dembi iyo xumaan hadduu asiiba alla u soo degdega qofka noocaasa in badan buu liibaani doonaa war khaatimada wanaagsan qabriga lagugu qiimaynaya ninaa carafa nebiga la taagnaa sala allahu calayhi wasalam ratigiisii buu ka dhacay ama faraskiisa kolkaasay qoorta ka jebisa ninkii waa dhintay laba go oo xaram ah ayuu wato cadcad ah rasuulku wuxuu dhahay biyo ii geed gobeed ku dhaqa dharka ha ka bedeline labadiisa go keliya karfan uga dhiga madaxa ha u daboolina wejiga ha ka daboolina xanad iyo udug ha u marinina sidiisa ku aasa maalinta qiyaama talbiyu ku soo bixi doonaa labbayk allahuma labbayk asoo dhahay soo baxaya waayo khaatimo fiican buu ku dhintay carafuu taagnaa walaalaya catarka looma baahna ilan catar uma baahnay asaa udgaya oo khaatimadiisaa fiicnayd madaxa ha u daboolina ilan weli waa xaaji wejiga ha u daboolina ilan weli waa xaaji maalinta qiyaamo waa soo baxaya asagoo la beegsanaya talbiye asagoo akrinayuu soo baxaya xaalada aad aad waa inaan ugu dadaalno war qof walba wuxuu ku dhalinyaroobuu ku duqoobaa war qof walba wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa war qof kasta wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa walaalaya dadaa ayagoo durbaana garaacay lasoo bixin doonaa qiyaamo ciyaadu billah dadaa ayagoo sigaar cabay lasoo bixin doonaa ciyaadu billah dadaa ayagoo macaasi ku dhex jira lasoo bixin doonaa dadaa ayagoo qur-aan akrinaaya ayagoo tawxiidsanaya ayagoo ilaahay xusaaya ayagoo khayraad ku dhex jira ayagoo taacada alla xoojinaya lasoo bixin doonaa waa la kala tegay walaalayaal jidka khayrka aan raacno
walaalayaal aan jidka wanaagsan ku socono. khaatimada xun aad bay u xun tahay. khaatimada xun ma wanaagsana. warba qofka khaatimadiisu xumaato dhibaato fara badan buu leeyahay. war dad badan baa khaatimo xun ku dhintay. wardadaa kutubka qur-aanka inta loo soo qaaday diiday oo tuuro nafta uga baxday. wardadaa laa ilaaha ila allah dhaha inta la yidhi laa ilaaha ila allah waa ku kufrinay yidhi. wardadaa afkooda waxa ugu dambeeyey waxay ahayd awoogay diintiisaan haystaa, sida ninka lagu magacaabo abi aalib oo kale. war misaananatii dhibaatada waxa keeni kara waa qofkoo diinta qalbigiisa ka qalasha, waa qofkoo rabbi xuskiisa yareeya, waa qofkoo macaasidu ay la macaato, waa qofkoo dembiga iyo dunuubta ay la badato, waa qofkoo rabbi subxaana wa tacaala diintiisa ku dhaqmi waaya. aad iyo aad aan isaga ilaalino. khaatimo xun wax wanaagsan ma aha. khaatimo wanaagsan ayaa khayr iyo wanaag lagu gaaraa, sharaf iyo cizi lagu mutaystaa, ilaahay agtiisan lagu hormaraa adduuniya aakhiro. qabrigana xaaladiisa waa sida oo barsaqa iyo dhulka ciriiriga ah yaa ummadda la geeyaa. in allaala inta qiyaamo la gaarayana meeshaasuu markaa qofku ku sugnaanayaa. ilaah xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, ilaahay diintiisa nagu sugo subxaana wa tacaala. ilaahay qabriga waa meel ciriiriya, rabbi ha noo waasiciyo. waa meel mugdiya, rabbi ha noo iftiinsho. waa meel cidlee, ilaahay weel wanaagsan ha noogu yeelo. ummadda khayrkii wanaagga lagu dhexeli doono rabbi ha nagu daro. rabbi subxaana wa tacaala inta xanuunsan caafimaad taama allaha siiyo, inta dhibaataysan dhibkana allaha ka rafaco, inta kurbaysan kurbada allaha ka faydo, intii muraad leh muraadkooda khayra allah u sakhiro. khaatimo wanaagsan allah nagu arsuqo, khaatimo xunna ilaahay hanaga badbaadiyo. dhulka hoostiisa markaan marnana ilaahay dadkii khayrkii wanaagga iyo jannada iyo rawdada u noqonaysay ilaahay ha nooga dhigo. xufraadka jahaname ilaahay noogama dhigo. rabbi subxaana wa tacaala dadku u maciino, khayrkii adduunkana khayrka iyo wanaagga ku hela qabrigana rabbi ha nagu daro. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.